wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada isboortiga mudane Cusmaan Aadan Duubo ayaa shaaca ka qaaday in wasaaraddiisa isboortiga ay la xisaabtami doonto dhammaan xiriirada isboorti ee ka jira gudaha Soomaaliya oo ugu horeeya xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta waxaana wasiir ku-xigeenka uu xusay in wasaaradda isboortiga aysan la xisaabtamin dhammaan xiriirada ka jira Soomaaliya waxaana uu xusay in wasaaradda isboortiga ay qaadi doonto tilaabo ay ku adkeyn doonaan la xisaabtanka xiriirada ka jira Soomaaliya hada waa kan wasiir ku-xigeenka oo arrimahaasi ka hadlaya qabyaalad ma laha isboortiga waa meesha daweyn lahayd waa meesha daweynaysa isboortiga ayada laftigeeda waxa moodaa meelihii qaar loo baahnaa in wax badan oo sida aad tilmaanteen horumar laga gaaro in dabac badan uu ku jiro oo la qabyaaladeeyay isboortiga Soomaaliya waxaan dareemaynaa budgetka inaan la ogeyn budgetka isboortiga uu lahaa sanadkii hadda la soo dhaaf waxaan maleynayaa wasaaradda ma hesho xiriirada waxa ay qaataan haddana waxay baahan xisaabtan in la xisaabtamo sidaan oo la xisaabtamaysa in la xisaabtamo qof kasta oo shakhsi oo Soomaali ah oo hool haya in la ogaado waxa uu hayo in la ogaado loo baahan waxa suurtagal ahayn oo aan ku celcelinayna waxa suurtagal ahayn oo la yaab leh in ay jiraan xiriiro dhaqaalihii FIFA oo kale si toos ah u soo galaan oo malaayiin boqolaal kun oo dollar haddana magaalo marka timaado ama degmo timaado lagu leeyahay hal kubad ma arag fanaanada ma arag hawl qalab ma arkin iska dhaaf macnaha garoon la sameeyo garoon la tilmaamo garoon la sameeyo waxa soo dhan xaq lagu leeyahay in lagu xisaabtamo loo xisaabtamo sida mataqaanaa ay dhabta loo xisaabtamo si wax looga bedelo waxa soo dhan waxaan ka rajaynaynaa in iskaashi muuqda wax badan si aan wax ugu bedelo dhinaca kale xildhibaan Qaasim ayaa xusay in xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ay baabi'iyeen dhammaan kooxihii ka dhisnaa gobolada Soomaaliya oo kamid ah 10 kooxood ee berisamaadkii isboortiska degmada Balcad waa aragteen labadii koob ee ay keenteen heer Balcad qaateen yeelina ma karaan Serie A ila Serie C inaysan hal koox ku yeelan ma yeeli doonaan mana yeelayaan hadda ogow waxa ka rabnaa kooxda degmada Balcad ee Soomaali Texas ina ka keento meesha ay jirto heer Balcad askale maadaama tahay wasiirkii sportiska hadda nala joogay annaga gabdhana waa u dhisanahay oo waa u dhisnaa jirnay wiilalna waa u dhisanahay min 25 ilaa 10 inta u dhaxaysa waa ka yaabeena koobala koobka ka tan oo qaadayna asagoo ku adkay wasaaradda dhalinyarada isboortiga in si weyn loo baadi goobo kooxihii heerka koowaad ee ka qayb qaadanaya berisamaadkii ee ka dhisnaa gobolada Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Somali Minu Football Cabdixaaq ayaa markaa iga warbixiyay tartan aad u xiiso badan ee kubadda cagta ay u qabteen ciyaartooyinka ka soo kala jeeda labada shabeelle waxaana tartankaani u dhaxeeyay laba kooxood ee ka soo kala jeeda degmooyinka Afgooye iyo degmada Jowhar waxaana ay kulan aad u xiiso badan degmada Balcad ee kula ciyaareen laba kooxood ee ka dhisan isla degmadaasi Balcad sida aan la socoto waxaan degmada Balcad maanta aan soo dhaweynay degmada Jowhar iyo degmada Afgooye iyo degmada Balcad oo qabatay tartankan abaabulkiisii sida aan la socoto dadweynaha Soomaaliyeed inta badan degmooyin isu imaanayo oo laba gobol ka imaanayo ma aysan bixin taariikhdii burburka haddana waa wax ku horeeyo Soomaaliya Somali Mini Football sida aan la socoto waxa ay u socotaa waxay tahay inay horumariso gobolada degmooyinka xaafadaha caruurta yar yar taas ay ujeedadana tahay in loo helo qaran tayo leh oo matali kara Soomaaliya sida aan la socoto waxaan u soo foodlay ciyaarihii Afrika bishii saddexaad sanadka dambe oo 8 qaaradood 8 wadan oo Afrika ay ku loolami doonaan Tunis magaalada madaxdeeda si ay u dheelaan koobka adduunka 2017 taasi waxa ka dhawaajiyay gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta adduunka isla markaana gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika mudane Ashraf bin Saalax taas ayaan soo diyaargaroobina waxaan doonaynaa in aan kulankiisa kale aan ku qabanno hadduu Ilaahay yiraahdo ama Afgooye ama Jowhar ama aan ku qabanno Kismaayo ama aan ku qabanno Gaalkacyo ama aan ku qabanno Hiiraan إلهي إذنكيس
sida aad la socoto ciyaarahan mini footballka waa wax ku cusub Soomaaliya maantana in hal saac gudahooda Master Bibay aan ku qabanno 7 gobol bishii 20keeda waa wax aan hore taariikhda aga dhicin burburkii alxamdulillah rabbil caalamiin aqoonta iyo dadka sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen xiriirka badcagiraha ayaa keenayo in ay dadka isla markii qabsadaan annagoo 8 bilood jirin maanta halkan waxaan u nimid inaan ka qayb galno ciyaar anagoo matalayno degmada Jowhar waxaan u hambalyeeynaa mini football Soomaaliya dhalinyarada halka isu keentay muddo bariyahan lama arkin muxuu ahaa degmooyin halka isugu yimaado tartan noocan loo qabto aad ay u mahadsan yihiin maadaama rigoor laga badiyay waxa ma insha Allah tartanka dambe badi doonaa labada kooxood baana macallin sadbe وأوجد أبوش إلى إن جالسي لابد كم واقعنا يرجعون سقوتين أفغان وسقوتين بوشنا على جنب عمل عبد الحي صالح اسمان توبرت حيان تتوحد بلعت وحن حلت دبنا بلعت وحن ما أنت دوش أنت دارني لابد دبنا وجوهر إيو أفضل يتليهن ما شاء الله إيتن وسقوتين توبتنا ونوصل الدلع عن كرايني شيء لابد جوريو دقمة أفغوي أدب درينكن وقاسية ما دام أنا هي تري دقمة بلعت أدب وفرحسن بوشة كجاري على نكيد وحنا كسرعة دقمة أفغوي وحنا ما أنت أتيات وفرحسن هاي برنامج كان سومالي ميني وأيسمسي وأما كل رئيسان إمارة دقمة ذني بلعت أتيات وفرحسن هاي وحنا ما أنت عيارنا كوبر أتيات وفرحان أولي جينا عنا يعني وأمركي ورئيس عياره ما تعتبر دريكي قاعد وأسرة يعمل قياس كرا كوبدنا مركور واستحق البرشو أي أساس وتهاي مركون كفرح سنة إن ضمن عنو كلا برتوانا وقصة مرة إن كوبد عكت على كوبرنا ما نكفرح سنة هاي السوق من قابي ترتن كان استحق البرشو ده بس كوبرنا يعني أنا كنا كفرح سنة الجورجين نقولين ما ضد أنا نقول إنه إمامنا كفرح سنة أيوة ياس أحمد علي وحنا كسرعنا قبل شبيلة هو صدق مقارهان دقمة أفغوية وكفرح سنة هاي عيارهان أمانة عيارني وعيقلنت iyo isdhaxgalka bulshada labada gobol anagoo gobolka Shabeellaha Hoose waa waqtiga ayaa nagu yaraaday ciyaar qurux badan waa soo bandhignay insha Allah waxaan isku diyaarin doonaa ciyaarta dambe ka dhici doonto degmada Afgooy ama gobolka Banaadir bisha soo socoto oo bacdi soon insha Allah waa diyaar ayaan u nahay waana mahadsantii TV qaranka BY guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraya xubintii ciyaaraha warka tan iyo xubintii xigta intaanu dib dambe u kulmi doono waa saaxiibkeen Maxamed Ibrahim Bibayo oo idinkaga tagay sida iyo nabadgelyo